بسم الله الرحمن الرحيم warkooban aan rabaa meeshaan kasoo jeediy oo ku saabsan dowladda federaalka ah markii waqtigu uu ka dhamaado 2016ka bisha August iyo September dowladda bedelaysa sida lagu soo dooran doona waayo shacabka Soomaaliyeed xooggiisa oo doorashada lagu sameeyo waxa lagu ogaaday inaysan rabin in waqtiga loo badiyo dowladda federaalka Soomaaliyeed heshiisyada ugu dambeeyay haddana waa ku cad yihiin in dowladda aan waqtiga loo kordhin ay tahay inay doorasho gasho hadday kusoo laabatay waa iyada iyo maalinta shacabka Soomaaliyeed runta marka go-aanka ah sida lagu soo dooranayo waxay ahayd go-aan u yaala shaqadii ugu weyn oo dowladda federaalka loo igmaday ay ahayd inay dalka gaarsiiso hal qof iyo hal cod ma gaarin shacabku markii la weydiiyay waxay yiraahdeen sababo la xiriira ammaanka waa qaarna waxay yiraahdeen sababo la xiriira ayadoon diyaar laga dhigin sharciyadii lama huraanka u ahaa in doorasho dhacdo arrinta aan xigsanayo ama aan cuskanayo waxa waa cilmi baaris ay samaysay macadka daraasaadka loo yaqaano maaragtay Heritage Institute for Policy Studies oo xaruntiisu tahay magaalada Muqdisho macad Soomaaliyeed waayo oo doorsamay runtii aad uga mahadcelinayaa shaqada wanaagsan oo ay qabteen dadku shacabka Soomaaliyeed la weydiiyay magaalada Garowe waa la tagay koonfurta Galkacyo Baydhabo Kismaayo iyo Muqdisho waana la weydiiyay dad kun qof boqol dad gaaray la weydiiyay iyadoo la adeegsanayo cilmiga cusub oo science statistics oo randomness wax la yiraahdo dadka Soomaaliyeed dhan ogaan kartaa maantadan la joogo qaabka ay wax u rabaan science statistics ku sahlaya inaad si chance u xulato dad kamid ah dadkaas ay noqdaan dad masalaya shacabka Soomaaliyeed marka waa la ogaan karaa shacabka Soomaaliyeed rabitaankooda iyo shucuurtooda iyadoo la adeegsanayo cilmiga cusub ee statistics ama xisaabiyaadka loo yaqaan marka arrintaas arrin kale ma rabo inaan galo marka cilmi baaris rasmi waxa lagu ogaaday shacabka Soomaaliyeed waxa ay rabaan iyo qaabkii u rabaan inay doorasho ku dhacdo badankood waxay yiraahdeen waxaan rabnaa qoladan soo socota inay xulato dadkii xubnaha ka noqon lahaa dowladda baarlamaanka federaalka dadkaas soo dooran doona madaxweyne soo dooran doona ra'iisul wasaare soo dooran doona wasiir dadkaasi odayaasha dhaqanka boqolkiiba 51 ama beelaha odayaasha dhaqanka soo xuleen xubnaha baarlamaanka federaalka ama beeluhu intay shiraan soo doorteen dadkii xubnaha ka noqon lahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed sidii 2012 kii dhacday dadka xoogoodu soo jira boqolkiiba 51 waxaa jirta marka dad kale too gaaraya boqolkiiba 41 oo yiri degmooyinka intay isku tagaan soo doorteen dadkii xubin ka noqon lahaa baarlamaanka federaalka dadkaas soo dooran lahaa madaxweynaha kuwa madaxweynuhu dooran ra'iisul wasaaruhu dooran wasiirada halkaas inay ka dhaceen ayaga qolada saddexaad ah qolada afar iga halaad qolada afraad waxay qolada tiri waxaan rabnaa maamul goboleedyada inay soo doortaan xubnihii ka noqon lahaa dadkii xubinta ka noqon lahaa baarlamaanka federaalka madaxweyne soo dooran lahaa ra'iisul wasaare wasiir halkaas ayagana ka dhaceen dadka xooggiisu markaad uduraskaas fiirisid wuxuu taageersan yahay odayaasha dhaqanka oo weli loo arko inay sharciyad kale yihiin hay'adda kaliya oo hawa shacabka Soomaaliyeed uu arko inay tahay hay'ad ka shaqeynaysa markii la waayo cod hal qof iyo cod markii la waayo hay'adda kaliya ku soo xigta oo maaragtay khibrad u leh xulis baarlamaan dhistaan baarlamaano fara badan oo dood badan aysan ka dhicin oo shacabka Soomaaliyeed uu arko inay yihiin baarlamaan saasan walow هذا مفرد بدن برلمانات أي دبتاجين مركا وهيئة أي شعب كصومالي نيدودو أي كده كنتها مركا لوبر بردقو هيئة كلا ودن كجير سو معمول قولادير هيئة كل حاجة تنوع بيلا واي أيضا الوكر سو يعني بيلا وشرن أي بحمله برلمان هيئة سد حد نحو دقموينك تبحثوا جود في هذين أن يرين أي حدا بقولك ولا وعتين تضربوا إذا دقموينك أنت شرن قولك كلا تنحو معمول قولادير مركا سيل اسكو waafajinaya heshiiska hadda ugu dambeeyay oo loogu yeeray maaragtay dhawaaqii Muqdisho declaration waxa lagu sheegay in baarlamaanka lagu soo xuli doono beelaha nidaamka maaragtay beelaha iyo constituencies-ka deegaan constituencies wuxuu noqon karaa maaragtay macnayaal badan oo yeelan karaa laakiin marka uduraskaas fiirisid wuxuu dooduusa tagaya degmooyin ama gobol magaalada Garowe iyo Kismaayo markaan isku barbardhigno Kismaayo dadka jooga xoogoodu waxay yiraahdeen maamul goboleedyada wadanka ka jira soo doorteen dadkii xubinta ka noqon lahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed meesha magaalada Garowe dadka xoogoodu ay yiraahdeen degmooyinka intay isku tagaan soo doorteen dadkii xubin ka noqon lahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed Muqdisho Baydhabo koonfurta Galkacyo
xoogoodu waxay yiraahdeen baarlamaanka waxay ku wadeen oo doroska ayadana beledweyne in laga sameeyo laakiin ma aysan suurtagelin oo la xiriir dhanka ammaanka Somaliland maaragtay hadii waxay tiri dowladda ka madax banaan wadanka ana ayagana waa ka sameyn waayeen oo doros koonfurta galgacyo baydhabo iyo muqdisho waxay xoogoodu isku raaceen odayaasha dhaqanka inay soo xulaan dadka xubinta ka noqon lahaa baarlamaanka federaalka ama beeruhu intay shiraan ayagu ay soo doortaan dadka xubin ka noqon lahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliya marka dadka xoogiisu waa odayaasha dhaqanka iyo beelaha marka si isku waafajinaya marka Garowe iyo Kismaayo waxay rabaan eedar maamul goboleedyada inay soo xulaan dadka xubinta ka noqon lahaa baarlamaanka federaalka Kismaayo Garowe waxay rabtaa degmooyinka walow dadka ku soo xigay ay yihiin kuwa maamul goboleedyada dhaxaya ayagana soo xulaan baarlamaanka federaalka Soomaaliya dadka xoogiisu marka waa degmooyinka ama beelaha ama odayaasha dhaqanka dowladda federaalku waajib saaran ay ahayd waqtiga waa uu nagu yiri waana soo wajahday in ayadu soo si cilmi oo dorso rabadaan shacab Soomaaliyeed xoro dareenkooda iyo shacabkooda kaana si inta la qorxiyo asaga lagu shaqeeyo si lacag looga helo Allah canshuurtan bixiyay waxa rajinaa ka shaqeynayna askar noo noqdo oo u dhinta dalkiin si markaas loola dagaalamo Soomaaliya iyo cadawga gudaha aan ogolaan horumarka shacabka Soomaaliyeed inuu ammaan helo shaqooyin loo abuuro wax soo saarkiisa uu ka shaqeeyo maaragtay uu beerihiisa wixii safasho khayraadka wadanka ku jira lala soo baxo si looga shaqeeyo maaragtay dadka maaragtay wax u helaan waxbarashada iyo caafimaadka kaabayaasha dhaqaalaha dal isku filan oo leh maamul ku shaqeynaya rabitaankooda iyo dareenkooda aan helin cidii intaas ka soo horjeedo oo dhan la iska dhiciyo mujida doorashooyinka saas la muran weyn diinta islaamka waa qabto amru muslimin shura baynahum ali kaliya tarisimada diinta islaamka ka soo horjeeda cid walba ha wadee أمرك كليه ولا قاعدين كلا وأمرهم أمر المسلمين بحد اللغة العربية وهو أمرك كأشة ولا تشي وأمرهم أمر المسلمين شو ربنا نكي أمر كليه ما لم يجي وأطيعوا الله وأطيعوا رسوله وأولي الأمر منكم وحواي وأمرهم شورى بينهم كصوب حوا لكن إنك خلق أنت إسكا قليل هذا وحاسوا وراك وشغل حلا يعدي عير لما أدي عير السمع وطاعة مجرد فهمت وحكي جرت في أمر منو شورى بينهم شورى وحي يصدق وتهي إن لسنية كسر رسم جرت سؤال الحقوق وادي بين دام كليه 4.5 إذا سويتوا أو قف Soomaaliya waxa leeyahay xafada marka oo doroska saas uu leeyahay anigana saas marka sidee marka la isku waafajinaa waxa la isku waafajinaa waxay tahay laba aqal la dhisay mid wuxuu matalayaa gobolada midna wuxuu matalayaa shacabka Soomaaliyeed hadii midna wuxuu matalayaa beelaha kaas la isku waafajin karaa dadka degmooyinka maamul goboleedyada taageersan waxa lagu qancin karaa aqalka sare dadku xubinta ka noqonaa gobol 3 qof ayuu yeelanayaa 3 qof waxa lagu soo dooraa degmooyinka ayaan isku tagaanay argooyin waxay soo dirayaan caasimadaha gobolada 18 gobol wadanka jira gobol markuu wuxuu doorayaa 3 qof oo baarlamaanka xubin uga noqoto deegaan marka ku imaanayaan kuwaas golaha shacabkana khibradda dadka u lahaa odayaasha dhaqanka iyo beelaha loo deenayo inay soo doortaan ila mar badan ay sameeyaan arrin yaqaan marka waqti badan kuma qaadanayso laakiin aniga waa ka soo horjeeda shacabka Soomaaliyeed waa ka soo horjeedaan in odayaasha dhaqanka la garab maro beelaha la garab maro degmooyinka la garab oo maamul goboleedyada dadka madaxda ka ah iyo kuwa madaxda dawladda federaalka ah hadii aan laga ra'iisul wasaaraha gudoomiyaha baarlamaanka iyo madaxweynaha baarlamaanka wasiirada inay soo xulaan ayaga dadka xubinta ka noqon lahaa baarlamaanka federaalka Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed waa ka soo horjeedaan anigana waa ka soo horjeedaa dadka Soomaaliyeed waxaan kula talinayaa ka soo wada horjeestaan si loo helo dawladdan badasho imaanaysa rabitaankan loona diyaar garoobo 2020 in gidda laga wada shaqeeyo in la dawlad ku shaqeynaysa rabitaankan iyo shuruurtan kana shaqeynaysa waxbarashada amaanka wax soo saarka shaqo abuurista kaabayaasha dhaqaalaha iyo guud ahaan sidii aan u heli lahayn inaan go'aan ka gaarno masiirkeena lacag anaga iska ururnay iyo nafteena maalkeena aan ku bixino si aan wadankeena ugu helno nabad iyo xorriyad. Aad iyo aad u mahadsantahay. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.